شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا sheekh abudalaxow tan markaan akrinayay aad ban horta waa yar qoslay run ahaantii allo maxaa dadka la haystaa saailkan waa nin weeyaan wuxuu yidhi sheekh abudalaxa programkiina aad iyo aad baan ugu taxanahay arrintan hadda aan maaragta doonayo xalkeeda bal inaad wax igala taliso kolley gabadhana way ku dhegaysanaysaye waa arrin marar badan igu soo noqnoqotay buu yidhi sheekh waxaan bu guursaday buu yidhi gabadh garooba amaba carmal ah ninba siduu yaqaano oo carruur kala wadatay wuxuu yidhi gabadhu marka horeba dee qof waxay ahayd meel degan oo maaragtay subsidieskan dawladdu ay siiso guryaha iyo alaab iyo wax walba qof meel degan bay ahayd oo wuxuu yidhi dee gabadha carmasha wuxuu yidhi sidii baan gabadhii isku guursanay haddaan marka horeba dee alaabiyo anigu wax raaraajin lahaa waxay tiri waxba ma baahnino gurigu waa camiran yahay dee boorsada keliyun soo qaado sidii baan yeelay boorsadaydii baan soo qaatay buu yidhi wuxuu yidhi wax kasta oo aan sameeyo haddaan sariirta ku fadhiisto waad jebinaysaa bay leedahay haddaan miis taabto wax walba oo alaabtaa guriga yacni hadal bay ka keenaysaa aniguna ereyga aad iyo aad baan u dhibsaday ayuu leeyahay waxayna iga taagan tahay buu leeyahay inaan because of hadalkaa gabadhu igu soo tuurayso mar walba inaan gurigaasi ku burburiyo oo aan ka tago in badanna waan la hadlayo waxaan ku yidhi dee iga daa way joojin weyda buu leeyahay marka maxaa talaa ood nagula talinaysaa iyadiina way ku maqlaysaa anigiina anigaa soo dirsay buu leeyahay falyatafadal مشكورا مأجورا شيخنا الفاضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ارتعاوى سؤاله إن يرجع أبدا يهين أو هذه الله فرحه معايا لسؤالها أنت بدن ضمرك أبدا ننشري مركا وأرين إيجابية وأنا أرين أن سود وينيو raggu markii ay su'aalaha ka qayb qaataan waa marka uu xalku soo dhow yahay wuxuu yidhi nin baan ahay gabadh carmala ama horey loo soo guursaday oo garooba baan guursaday guri bay deganayd kadibna waxay igu tidhi gurigu dee waaba buuxaaya boorsada un la imow markaan boorsadii la imaadayna dhib badan baan ku qabaayo sariirta xoog ha ugu fadhiisanin way jabaysaa iyo waxa lamidka ah aniguna arrintii waan dhibsaday taasuu tala horta ka doonayaa saa'ilku horta saa'ilka waxaan leeyahay soomaalidii akhyaarta ahayd soomaalidii gobta ahayd soomaalidii waxgaradka ahayd ayaa hore waxay u tidhi haweeney haddii ay qaado wadato waa laga tuuraa hadda waa qaado haweenka xoolahooda looma dhowaado raggu inay aad u dhegaystaan way fiican tahay hadda ka hor waxaa la yidhi dhurwaabaa qof dumara neef ari ah ka qaaday oo waa ka cunay kadibna haweenaydii mar kastoo dhurwaa aragtaba waxay dhahdaa alla waa kii laxdaydii ama ridaydii cunay maalintii dambe dhurwaagii baa arrintii u adkaysan kari waayey wuxuu yidhi haddaan xoolaha dumarka xoolaha ka aqoon lahaa hal neefa kama cuneen dhurwaagii baa ka calacalay oo horay oga qayliyey warragow dumarka xoolahooda ha layska ilaaliyo waayahan dambena way badatay galbeedka way ku badatay weliba heer waxaa la gaadhay la yidhaahdo haweenayda sheekhow iisoo raadi haween ilaa 5-6 carruura leh maxaa yeelay 3 biloodka lacag fiican baa u soo dhacda waxaasi sharaf ma aha wax la yaqaanayna maaha horta mahmahdii soomaaliyeed iyo gobnimadii soomaaliyeed iyo sharafnimadii soomaaliyeed ayaad marka horeba indhaha ka riday ood jiidhay marka shalayna haddee waxaa weeyaan waad tala xumayd weeye maantana waad orod daran tahay ninkii intuu soo sahmiyey xoolo intuu reerka u soo sahmiyeyba wuxuu meel uu dhurwaa degan yahay buu reerkii marka dhurwaagii ba intuu la hadlo yidhi warniyow halkan ha isku keenin halkaan ha isku keenin xoolahaaga iyo reerkaaga ma uusan maqala reerkii buu soo dejiyey markuu soo dejiyey buu markiiba neef la orday waa ka daba ordayoo markuu gaari waayo intuu gadaal usoo fiiri wuxuu yidhi
iyo shayna waa tala xumayd maanta waad orod darantay buu hadda waxaad yeelaysaa sheekhana hadda tala iga doonayso waxay ahayd gabadhan inaad dhahdo gabadhay dhegayso aniga haddii aan gabadhay qaada hadday wadato waa laga tuuraaye alaabtaadan xagga dhigo oo intaan xaraashno ama aan sadaqaysano ama keellaha aad noo dhigto anigaa shafka garaacday alaab noo soo dhigaya anaa shafka garaacamaya taasi horta waa sida wanaagsan ee ragga laga doonayo laakiin waan ogahay oo duruuf baa timid xaqiiqadu waa noocaa duruufta timid laftaydu waan fahmi karaa duruuf aan laga gudbi karin baa timid oo ah gabdhihii guur wanaagsan way la'yihiin gabadh baad arkaysaa 10 sano 15 sano yacni gabar yar ah oo 2 ilmood leh 3 ilmood leh oo ciday isku hadlaysala saa daraaddeed hadday arag hesho nin wanaagsan waxay marka horeba leedahay dhibaato ma leh waddankana dhaqaalihii waa liitaa ninkana xaas buu leeyahay ama 2 xaas buu leeyahay marka ceeb ma aha gabadhu inay dhahdo war kaalay gurigu waa buuxaaye noo kaalay ceeb ma aha waa wax wanaagsan laakiin gabadha waxaa laga doonayaa inay gabadhu damiirka ninka qadariso oo raggu waxaynan aqbalin baa jira ninku haddii uu bixiyo hadda ka hor haween baa waxay u dhaheen waa dhoofaynaayo waddankaasaa niman ka soo guursanaynaa oo miyaad keenaysaan maya halkaasu ii joogi oo anaa aadi taasi waxaa idhi horay ooma dhicin ha isku daarinina oo maxaa dhacay niqaash baa la dhex maray waxaan ku idhi waa adaa cilaamanaya soo maaha haa adaa ninkii u tegaya soo maaha haa intaad la joogtana biilkiisa adaa bixinaya soo maaha haa kadibna waad soo noqonaysaa haa 1 sano baan kuu qabtay haddaad 2 sano aad sii wado gabar fiican baa tahay maxaa dhacay bulshadaada marka horeba kula yaabi oo ku dhihi maxay war miyay waalan tahay gabadhan nin loo safraal haweenay loo safraal la arki jiray war ma nin loo haweenay safraysa la arkay oo maxramlaan u sii socota oo sii socota soo socota maya haweenaydu markay dhowr jeer tigir goosato ninkii waxay leedahay aniga ma adaa arrijaalu qawaamuun laakiin ninku hadduu 1 milyan bixiyo oo xaaskiisa ku bixiyo wuu ku faanayaa laakiin haweenaydu hadday $200 kugu darsato walle waxaa weeyaan wax badan baa kugu maqani ogow tajaaribtaa way jirtaa gebagabada markaa xalka gabar yahay ninka soo dhawe qalbigiisana ilaali raggana waxayna u dul qaadan karin baro waa inaad barataan sariirtan hadduu ku jabo uu jabiyo isagaa soo geli doona insha allah markay jabto warde sariirta way naga jabtay maxaan samaynaa dheh sariirta way naga jabtay laakiin sariirta tartiib waa u fadhiisi iyo tartiib u soci iyo waxaa weeyaan khatarteeda ay leedahay hadda ka hor nin baa nin kaba u gaday markaasuu markuu arko wuxuu dhahaa halkan ha kula soconin shanqadha ka ilaali maxaa la dhoomada ka ilaali saasuu ku dhahaa markaasuu uu ka soo dacwado wuxuu yidhi warniyow ninkaa kabuu ii gaday wuuna igu dhibay maxaan sameeyaa mid kale yidhi iska sii anaa kuwa kuu gadaye oo u gaday asna markuu arko wuxuu dhahaa saad rabta ugu soco labadaa wax u dhexeeya baa jira marka gabar yahay ilaali zawjkaaga wanaag badan buu kuu leeyahay nin kale waxaan leeyahay adaa u soo galay dumar gurigeedu u camiran yahaye ha isku darsanin cala dhawaansho iyo inaad guri camiran soo gasho war sabar haddee oo dul qaado oo markay ku dhahda ha jabinin alla waa runta hooday naga jabta maxaan ku seexanaynaa dhe alla waa runta ma xoog baan ugu fadhiisay talow sariirtu miyay xanuunsatay sariirtu inay xanuunsaa laga yaabaa bas sariiray mar dambe xoog kugu fadhiisan maayo ogow haddaan sariiray mar kale xoog kugu fadhiisto haddaba waan kaa gardarraayay ogow bal adigoo sariirtii maalin dambe adoo la hadlaya markay ku aragto adigoo sariirtii la hadlaya sidii qof waalan markay ku aragto oo kursigii la hadlaya sidii qof waalan kursiyow hadda ka hor xoog baan kugu fadhiistay waan khaldanaa raalli ahow haddaan mar dambe xoog kugu fadhiisto anaa kaa gardaran markay ku aragto ayadaaba dhihi doonta raalli ahow wallahi inaan mar dambe ku dhehaynin war saa doonta ugu tumo sidii ninkii aan kula hadda saa doonta ugu soco ku dhihayaa marka reerkaa la dhiso gabdho yahow reerka ka ilaaliya maxaa ragga wax dhibaya ragowna markaad gabdho guursanaysaan ama iska jooga niman yahow ciirta cabba oo malmalka cabba cuna malmalkiina iska cabba oo ciirta cabba oo isniin iyo khamiis sooma oo iska jooga oo canuurta dib u laqa oo shahwadiina la dagaalama ama haddaad guursanaysaan waxaa weeyaan dumarka si wanaagsan ha loo dhaqo oo si wanaagsan ha loo maamulo oo gabdhaha ha la karaameeyo
وتي سرير تهلقة بدلوا على الأقل سرير توقع قدرتنا أظن سرير بدل كرير هجرين سرير على الأقل جوده كبدل أنت يعني لا والله أعلم. ما شاء الله بارك الله فيك شيخنا الفاضل أسأل الله أن يبارك لك العلم والعمر والأولاد ما شاء الله آد بان أتش على كلمتها شيخ أبو طلحة ويري أولي ورابو ويري ورابو شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا waxay dhahdaa alla waa kii laxdaydii ama ridaydii cunay maalintii dambe dhurwaagii baa arrintii u adkaysan kari waayey wuxuu yidhi haddaan xoolaha dumarka xoolaha ka aqoon lahaa hal neefa kama cuneen dhurwaagii baa ka calacalay oo horay oga qayliyey warragow dumarka xoolahooda ha layska ilaaliyo waayahan dambena way badatay galbeedka way ku badatay weliba heer waxaa la gaadhay la yidhaahdo haweenayda sheekhow ii soo raadi haween ilaa 5-6 carruura leh maxaa yeelay 3 biloodka lacag fiican baa u soo dhacda waxaasi sharaf ma aha wax la yaqaanayna ma aha horta mahmahdii soomaaliyeed iyo gobnimadii soomaaliyeed iyo sharafnimadii soomaaliyeed ayaad marka horeba indhaha ka riday ood jiidhay marka shalayna haddee waxaa weeyaan waad tala xumayd weeye maantana waad orod daran tahay ninkii intuu soo sahmiyey xoolo intuu reerka u soo sahmiyeyba wuxuu meel uu dhurwaad degan yahay buu reerkii marka dhurwaagiba intuu la hadlo yidhi warniyow halkan ha isku keenin xoolahaaga iyo reerkaaga ma uusan maqala reerkii buu soo dejiyey markuu soo dejiyey buu markiiba neef la orday waa ka daba ordayoo markuu gaari waayo intuu gadaal u soo fiiri wuxuu yidhi niyow shalayna waa tala xumayd maantana waad orod daran tahay buu yidhi hadda waxaad yeelaysaa sheekhana haddaad tala iga doonayso waxay ahayd gabadhan inaad dhahdo gabadhay dhegayso aniga haddii aan gabadhay qaadda hadday wadato waa laga tuuraaye alaabtaadan xagga dhigo oo intaan xaraashno ama aan sadaqaysanno ama keellaha aad noo dhigto anigaa shafka garaacday oo alaab noo soo dhigaya anaa shafka garaacanaya taasi horta waa sida wanaagsan ee ragga laga doonayo laakiin waan ogahay oo duruuf baa timid xaqiiqadu waa noocaa duruufta timid laftaydu waan fahmi karaa duruuf aan laga gudbi karin baa timid oo ah gabdhihii guur wanaagsan way la'yihiin gabadh baad arkaysaa 10 sano 15 sano yacni gabarh yar ah oo 2 ilmood leh 3 ilmood leh oo ciday isku hadlaysala saa daraaddeed hadday arag hesho nin wanaagsan waxay marka horeba leedahay dhibaato ma leh waddankana dhaqaalihii waa liitaa ninkana xaas buu leeyahay ama 2 xaas buu leeyahay marka ceeb ma aha gabadhu inay dhahdo war kaalay gurigu waa buuxaaye noo kaalay ceeb ma aha waa wax wanaagsan laakiin gabadha waxaa laga doonayaa inay gabadhu damiirka ninka qadariso oo raggu waxaynan aqbalin baa jira ninku haddii uu bixiyo hadda ka hor haween baa waxay u dhaheen waa dhoofaynaayo waddankaasaa niman ka soo guursanaynaa oo miyaad keenaysaan maya halkaasu ii joogi oo anaa aadi taasi waxaa idhi horay ooma dhicin ha isku daalinina oo maxaa dhacay niqaash baa la dhex maray waxaan ku yidhi waa adaa cilaamanaya soo maa haa adaa ninkii u tegaya soo maa haa intaad la joogtana biilkiisa adaa bixinaya soo maa haa kadibna waad soo noqonaysaa haa 1 sano baan kuu qabtay haddaad 2 sano aad sii wado gabar fiican baa tahay maxaa dhacay bulshadaada marka horeba kula yaabi oo ku dhihi maxay war miyay waalan tahay gabadhan nin loo safraal haweenay loo safraa la arki jiray war ma nin haweenay safraysa la arkay oo maxramlaan u sii socota oo sii socota soo socota maya haweenaydu markay dhowr jeer tigir goosato ninkii waxay leedahay aniga ma شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا sheekh Abu Dalxow tan markaan akhrinayay aad baan horta waa yar qoslay run ahaantii Allah maxaa dadka la haystaa saalkan waa nin weeyaan wuxuu yidhi sheekh Abu Dalxow programkiina aad baan ugu taxanahay arrintan hadda aan maaragtay doonayo xalkeeda bal inaad wax igala taliso
kolley gabadhana way ku dhegaysanaysaay waa arrin marar badan igu soo noqnoqotay buu yidhi se waxaan buu guursaday buu yidhi gabadh garooba amaba carmal ah ninba sida u yaqaano oo carruur kala wadatay wuxuu yidhi gabadhu marka horeba dee qof waxay ahayd meel degan oo maaragtay subsidieskan dawladdu ay siiso guryaha iyo alaab iyo wax walba qof meel degan bay ahayd oo wuxuu yidhi dee gabadha carmasha wuxuu yidhi sidii baan gabadhii isku guursanay haddaan marka horeba dee alaabiyo anigu wax raaraadsan lahaa waxay tiri waxba ma baahnino gurigu waa camiran yahay dee boorsada keliya soo qaado sidii baan yeelay boorsadaydii baan soo qaatay buu yidhi wuxuu yidhi wax kasta oo aan sameeyo haddaan sariirta ku fadhiisto waad jebinaysaa bay leedahay haddaan miis taabto wax walba oo alaabtaa guriga yacni hadal bay ka keenaysaa aniguna ereyga aad iyo aad baan u dhibsaday ayuu leeyahay waxayna iga taagan tahay buu leeyahay inaan because of hadalkaa gabadhu igu soo tuurayso mar walba inaan gurigaasi ku burburiyo oo aan ka tago in badanna waan la hadlay oo waxaan ku yidhi dee iga daa way joojin weyda buu leeyahay marka maxaa talaa ood nagula talinaysaa iyadiina way ku maqlaysaa anigiina anigaa soo dirsay buu leeyahay falay tafadal mashkuuran ma'juura sheekhul الفاضل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتعاوى سؤاله إنay ragga u badan yihiin oo waxaadii aad loogu farxo maxaa yeelay su'aalaha inta badan dumarka u bannaan jiray marka waa arrin iijaabi ah waana arrin aan soo dhowaynayo raggu markii ay su'aalaha ka qayb qaataan waa marka uu xalku soo dhow yahay wuxuu yidhi nin baan ahay gabadh carmala ama horey loo soo guursaday oo garooba baan guursaday guri bay degganayd kadibna waxay igu tidhi gurigu dee waaba buuxaaya boorsada un la imow markaan boorsadii la imaadayna dhib badan baan ku qabaayo sariirta xoog ha ugu fadhiisanin way jabaysaa iyo waxa lamidka ah aniguna arrintii waan dhibsaday taasuu tala horta ka doonayaa saa'ilku horta saa'ilka waxaan leeyahay soomaalidii akhyaarta ahayd soomaalidii gobta ahayd soomaalidii waxgaradka ahayd ayaa hore waxay u tidhi haweeney haddii ay qaaddo wadato waa laga tuuraa hadda waa qaaddo haweenka xoolahooda looma dhowaado raggu inay aad u dhegaystaan way fiican tahay hadda ka hor waxaa la yidhi dhurwaabaa qof dumara neef ari ah ka qaaday oo waa ka cunay kadibna haweenaydii mar kastoy dhurwaa aragtaba alrijaalu qawaamuun laakiin ninku hadduu 1 milyan bixiyo oo xaaskiisa ku bixiyo wuu ku faanayaa laakiin haweenaydu hadday $200 kugu darsato walle waxaa weeyaan wax badan baa kugu maqani ogow tajaaribtaa way jirtaa gebagabada markaa xalka gabar yahay ninka soo dhowe qalbigiisana ilaali raggana waxayna u dul qaadan karin baro waa inaad barataan sariirtan hadduu ku jabo uu jabiyo isagaa soo gadi doona insha allah markay jabto war dee sariirta way naga jabtay maxaan samaynaa dheh sariirta way naga jabtay laakiin sariirta tartiib ugu fadhiisi iyo tartiib u soci iyo waxaa weeyaan khatarteeda ay leedahay hadda ka hor nin baa nin kaba u gaday markaasuu markuu arko wuxuu dhahaa halkanaa kula soconin shanqadha ka ilaali maxaa la dhoomada ka ilaali saasuu ku dhahaa markaasuu uu ka soo dacwado wuxuu yidhi warniyow ninkaa kabuu ii gaday wuuna igu dhibay maxaan sameeyaa mid kale yidhi iska sii anaa kuwa kuu gadaye oo u gaday asna markuu arka wuxuu dhahaa saad rabta ugu soco labadaa wax u dhexeeya baa jira marka gabar yahay ilaali zawjkaaga wanaag badan buu kuu leeyahay nin kale waxaan leeyahay adaa u soo galay dumar gurigeedu u camiran yahaye ha isku darsanin cara dhowaansho iyo inaad guri camiran soo gasho war sabar haddee oo dul qaado oo markay ku dhahda ha jabinin alla waa runta hooday naga jabta maxaan ku seexanaynaa dhe alla waa runta ma xoog baan ugu fadhiisay talow sariirtu miyay xanuunsatay sariirtu inay xanuunsataa laga yaabaa bas sariirey mar dambe xoog kugu fadhiisan maayo ogow haddaan sariirey mar kale xoog kugu fadhiisto haddaba waan kaa gardarraayay ogow bal adigu